waxaanu aragnaa in laynu ku soo duulaan cad laynu ku soo qaaday oo naf iyo maalba laynoo wado. waa intii ugu horeysay tani aanu hadda maanta keenay wadalmoge naqaanaa sida aad hore u sheegteen deegaan iyo isku dhulna waa nahay. wadalmoge waxaan maranay laba qaybood buu degan yahay oo qayb bari ah iyo qayb mudug ah. marka qaybta mudugtaan is naqaan anagu. gabdhaha wadalmoge ee gobolka bari walaalayaal aad baa u mahadsantihiin. wayniga mahadcelinaynaa garab istaaga iyo taageerada u muujinaysaan dadka walaalihiina. jamaahiirta halkan isugu timi rag iyo dumarba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaanu nahay dhallinyaradii iyo maamooyinkii guruubadii aa hore ula kulanteen ee ka tirsanaa beesha maxamed alareer gabdhahoodii iyo haweenkoodiiba waxaanu idinku wareejinaynaa. waa soo daahnay waa ognahay laakiin duruufaha iska adag. waxaanu idinku wareejinaynaa alaabtaanu halkaa keennay oo timir ah. haddee waxaan rabnaa inaad naga guddoontaan insha allah biidnillaahi kariim. dee waa wada joognaana ma kala maqnin. hawshu weli waa hogadii yaa ilaahay haynoo fududeeyo horta ilaahay haynoo fududeeyo. hase ahaatee inay hawsha culus tahay waa la soconnaa waa ognahay. annagaba ka qayb baanu nahay. marka insha allah dee waanu wada joognaa loo kala tegi maayo. waa intii ugu horeysay tani aanu hadda maanta keennay. insha allah wixii dambena waa islagula soo noqon doonaa haddii lahaydmo. dhammaantiin intayna madasha isugu timid waxaa isu keenay waa dhibka jiray ismayna arki jirin ismana ayna imaan jirin. magacunba isku maqlimi jirnay maahane gacalnimayna ka dhexaysa ismayna soo doonan jirin. laakiin maxaa isu keenay dhibaatada dhacday. dhibka dhacay bayna kula siiyey. horta ilaahay waxaan ka tuugnay waa xilli barakaysana dhibka dhacay inuu ilaahay naga faydo ilaahay inuu naga dulqaado qolo walbana meesheedii iyo maqaamkeeda uu ilaahay u macaaniyo u buskeeyo. waxaanu aragnaa in laynu ku soo duulaan cad laynu ku soo qaaday oo naf iyo maalba laynoo wado. marka alxamdulilah waxaana maxay u dhaceen lama dhaho laakiin qadartu wayna ku dhacday alxamdulilah baan leenahay. inta tabarteennana doqon baan arsana waa ka gaashaamanaynaa. waxaad iga raalina ahaataan codku way xiran yahay. waxaa way xagga codkan ka xanuunsana idinkuna faataxada ii mara ilaahay inuu codka ii furo. kulanka aynu isugu nimid oo dhibku isu keenay alla waxaan ka tugnay inuu rabbi horta naga dulqaado. walaalayaalow waxaanu idinku nimid maantay ma ahan inaan wax idinku dhegan idinka fujinno waxaynu ku yimid celino. laakiin meesha waa madale ha ka maqnaan baan ku nimidba sida runtii meesha waa madal ee ha ka maqnaan. nina tabartiisa loo satugiiri anigii maamooyinkan iyo gabdha mudadabiciin oo intaa yartaa sadaqaystay baanu arrintooda ku nimid oo ku keennay. marka tolkayo horta raalli noo ahaada annagoo soo daahnay oo haddana waqti adag yahay. haddana nin walba tiisu gadaalka cuslayso colaad lamida lafta ayaga meel bay naga haysata alxamdulilah. idinkana alla idinka dulfeeda annagana alla noo qaboojo. walaalayaal marka idinkoo raalliya oo gacalkeena horta aynu ducaysano oo ducadu haynoo noqoto shay tamaama aynu ku soconno. ayada unbaa qofkii aan la baryin waa bakhayl baa layiri. haddaynan rabbi baryinin bakhaylnimaa nagu soo baxaysa. marka walaalayaalow insha allahu khayr iyo qanaacooyin fara badan waa rajaynaynaa. ilaaha raxmaankana inuu inoo boogadhayo dhibkeen iyo dhaawaceen iyo waxaynu ku dhacayba rabbigo inoo boogadhayaan ilaah ka tuugnay. waxaanu keenay waa waxay aad arkaysaan guddoon wacan iyo insha allahu duco aad insha allah xaggiina ka keentaana waanu idinka rajaynaynaa. maxamed alreer reerka wadalmoge aldhaa wadalmoga loo yaqaanaa magaca maxamed alreer ilmadareer nooma yaqaanaan waa aftirsiya laakiin magaca noo loo yaqaana waa wadalmoge. marka beesha wadalmogaanu ka soconaa gabdhihii beesha wadalmoge oo gabdho yaroo kooban aan ahayn gabdhihii idilkooda. marka walaal khayr badan baan idin rajaya waan idin salaamaya rag iyo dumar maqaamkeena aan idinku salaamay. gabdhaha walaalaheen oo maxamed talareeb
oo wadalmoge naqaanaa sida aad hore u sheegteen dee degaan iyo isku dhulna waa nahay dad walaalaana waa nahay aan kala dheeraana haddaan doonne wadalmoge waxaan malanaya 2 qaybood buu degan yahay oo qayb bari ah iyo qayb muduga marka qaybta mudugtaan isnaqaan anagu marka soo dhawaada horta awalan marka koobaad mar labaadka barasho wanaagsan mar saddexaadkana waa idin mahad celinaynaa waxaan wada leenahay oo aynan kala lahayn oo meesha ka jiro dhib ah baan u kala faro dhuudhuubanahay oo qofba mar uu imanaya ku soo biiraya insha Allah marka warqabka aad naga warhayseen awal hore iyo meesha waa la wada joogaa hadda ciidan kama maqna deena waa ka fognahay oo bari baan joognaa wixii aan helana waa u gurmanaynaa dhamaanteen marka gurmadkaana waa idinka gudoonay waana idinka mahad celinaynaa dee raggii iyo odayaashii kalena waa is aragnay ama mudaha joogaan ama halkan ha joogaan marka waa mahadsantihiin Allah idin barakeeyo dee gabadhi waa beel weeye oo macnaha waa wadan baa leeyahay hooyo waa wadanka oo dhan weeye hooyo ama waa ummad baa lagu masaala hooyo dee gabadhina waa hooyo marka intiina gabdhaha ah iyo intiina hooyooyinka aba aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa laf dhabarteedii baa tihiin waa idin baahannahay maanta iyo bariba idinkuna waa noo baahan tihiin wixii wanaagahoo xagga ka yimaada waa wax wanaagahoo aan wada helnay wixii dhibahoo ina wada hayaana waa wax dhibahoo ina wada gaaray marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana idin mahad celinaynaa awala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وبشي رمضان كودي مالي خميسة تاريخنا أي تهي 23 بشي 3 لبدكن إيه 23 waxaan halkaan u fadhinaa inaan ka gudoono deeq timira oo ay keeneen gabdhaha wadalmuge ee gobolka bari walaalayaal aad baa u mahadsantihiin waa iniga mahad celinaynaa garab istaaga iyo taageerada u muujinaysaan dadka walaalihiina ee ku dhibaataysan gobolka Sool iyo daafihiisa waxa uu wanaagsan oo la baxsadana way ka mid yihiin aytamyadana keenteen marka koowaad iyo mar labaad ba aad baynu ugu mahad celinaynaa sida dhaqsaha iyo hufnaanta la aad uga soo jawaabteen kulamadii hore oo la isku arkayay gabdhaha beelaha daarood gabdhihii afraad oo noo imanaya baa tihiin aad baynu ugu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba waa bil Ramadaan horta Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqda iyo acmaasha wanaagsan nasoo siiyo Ilaahay kuwii caafimaad iyo bashbash barwaaqo ku soomana Ilaahay naga dhigo maadaama aan ku jirno bishii ugu khayr badneed bilaha sanadka Ilaahay colaada iyo dhibta ka taagan gobolkeeni duulaanka lagu soo qaaday cadawga ku soo duuleen in Ilaahay nooga kor qaado bisha Ramadaan fadligeed iyo awgeeda innagana inteena gobolka bari joogta aynu mar walba dhiiranaan iyo ka qaadno aynu garab istaag u maajino dadka walaalaheena halka ku dhibaataysan aad baynu ugu mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada waa markii koowaad laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa inaysan markii koowaadna inii noqon markii u dambeysana aysan inii noqon oo hawshu wili waa jirtaa wayna socotaa Ilaahay afur raxiima soo afjari kara waa inii mahad celinaynaa